Baro Ingiriiska mar kasta iyo meel kasta oo aad caalamka oo dhan aad ka joogto. Mawduuceenu waa ka duwan yahay mawaadiicdii hore, wuxuuna ku saabsan yahay importance muhiimadda of English language luqadda Ingiriiska. Waa su'aalo markaas ku saabsan muhiimadda luqadda Ingiriiska. Importance of English language. Importance muhiimadda of English language luqadda Ingiriiska. Why are you learning English? Sababtee u baranaysaa Ingiriiska? Why sababtee are you adigu learning u baranaysaa English Ingiriiska? I am learning English. Waxaan u baranayaa Ingiriiska to improve si aan u horumariyo my communication xiriirkayga and career iyo xirfadeyda, macnaha shaqadeyda, and career opportunities iyo fursadahayga shaqo. I am anigu learning waxaan u baranayaa English Ingiriiska to improve si aan u horumariyo my communication xiriirkayga. Okay? And career opportunities iyo fursadahayga shaqo. Why is English important? Sababtee Ingiriisku muhiim u yahay? Why sababtee is Ingiriisku important muhiim u yahay? English Ingiriisku is important waa muhiim because maxaa yeelay it is spoken waxaa looga hadlaa worldwide adduunka oo dhan, and connects wuxuuna isku xiraa people dadka from kasoo kala jeeda different countries wadamo kala duwan. English Ingiriisku is important waa muhiim because maxaa yeelay it is spoken waxaa looga hadlaa worldwide adduunka oo dhan, and connects wuxuuna isku xiraa people dadka from kasoo kala jeeda different countries wadamo kala duwan. How many people imisadada speak ayaa ku hadasha English Ingiriiska globally caalami ahaan? How many people imisadada speak ayaa ku hadasha English Ingiriiska globally caalami ahaan? Over in ka badan 1.5 billion, 1 bilyan iyo bar people dad ah speak ayaa ku hadla English Ingiriiska either as a first or second language, oo ugu hadla luqadooda koowaad ama luqadooda labaad. Either oo uu yahay ama ugu hadla as a first or second language, luqadooda koowaad, first language, luqadda koowaad oo micnaha u dhalato. Sida Soomaalidu maxay ku hadlaan luqadooda koowaad maxaa Soomaali, or ama second language luqadda labaad. Why sababtee is English Ingiriiska called loogu magacaabaa ama loogu yeeraa an international language luqad caalami ah? Why sababtee is English Ingiriiska called loogu yeeraa ama loogu magacaabaa an international language luqad caalami ah? Because maxaa yeelay it is used waxaa loo isticmaalaa for communication xiriirka in business ganacsiga. Wada xiriirka ganacsiga ayaa loo isticmaalaa iyo dadka shaqooyinku ay ka dhexeeyaan oo ajnabiga inta badan waxay isticmaalaan luqadda Ingiriiska. Science ayaa loo isticmaalaa, education waxbarashada ayaa loo isticmaalaa, and travel iyo safarka. Because maxaa yeelay it is used for waxaa loo isticmaalaa it ayada is used for waxaa loo isticmaalaa communication xiriirka in business shaqada ama ganacsiga. Science-ka, education waxbarashada, and travel iyo safarka. Aad baad u mahadsantahay haddii aad halkan soo gaartay. Laagta ku muuji haddii aad jeceshahay barashada luqadda Ingiriiskana nala soo xiriir. Waxaan ku haynaa koorsooyin iyo casharro isla xisaabtan leh oo aad ku baran karto luqadda Ingiriiska si fudud.